baan horta aan waxaan aaminsanahay qadar Ilaahay subhanahu wa ta'ala in wax walba ku dhacdo naftan inay markoo aysan waa aaminsanahay haddii maanta qof in sabab ligaaga dhiganay oo qof walba dhahayo dawladda ka soo horjeedo ku dilayaan oo dawladda cabsigaas dadka ay geliso especially dadkii soo doorteen oo xildhibaano ah horta inay arrin qurux badan inay saas u ogaadaan rabaa inay saas u ogaadaan oo anigana maanta hadda gurigeen ku xareysanahay cabsi ka qabo inaan balaan ku baxo maanta askariga inta kaliya yiro igu dhahay oo inta ay geliyaan waan ka xumaa ra'iisul wasaare wadan dan inuu soo gal arin laba dumar saddex martay haddii xataa dawladda aan ka soo jeeday u yeelanaysa xataa oo isku tol ah inuu soo dhaxgalo oo amar buux ka soo bixiyo oo askarigii markii soo la soo daminta oo xiro oo asagana maadaama degan midif la ahay wax sheekada qabiil u bedelo laakiin hal qabiilna istagaashay inuu soo dhaxgalo inta ma ka filinayna wasaaro horta mana maday si kasta ha u xumaadeen inta waa iyagu igala weynaa laakiin hadda maanta kadib waxaan u arkaa it's just wax kastan ka filanaya markaa kadib